بسم الله الرحمن الرحيم أن وحكبرون ويدينتن What is a functional organizational structure? Functional organizational structure waxaan ku qeexi karnaa waa mid ka mid qaababka ugu caansan ee loo dhiso kala sarreynta shirkadaha waxa ayna munaasab ku tahay ama ay ku fiican tahay inay adeegsadaan shirkadaha waaweyn waana qaab dhismeed shaqaalaha shirkadda loogu qaybinayo waaxyaha ay ka kooban tahay shirkadda oo waxaa la rabaa in shaqaalaha intii isku xirfad ama isku shaqo qabanaysa in hal waax ay ka shaqeeyaan haddaba waxaa shaqaalaha loo abaabulayaa ama loo organize gareynayaa iyadoo la fiirinayo xirfadooda sida operations department, human resource department, marketing department, sales department iyo wixii la halmaala haddaba marka ay imaato sida loo kala sarreeyo sida aad ka aragtaan qaybta midig shaqaalaha waxa ay u warbixinayaan team managerkooda isaga ama ayadana waxa ay u report gareynayaan maamulaha waaxda sidoo kale maamulayaasha waaxda waxa ay u report gareynayaan CEO-ga ama maamulka sare ee shirkadda CEO-na waxa waaye waa Chief Executive Officer waa maamulka guud yaa u shirkaddan haddaba waa maxay faa'iidada ku jirta haddii shirkadaha ay adeegsadaan qaab dhismeedka functional organizational structure aan isla aragno qayb ka tirsan faa'iidada kow wax soo saarka sare ayuu aadaa waayo shaqaalaha ka shaqaynaya waaxyaha kala duwan waxa ay haystaan aqoontii looga baahnaa inay ku qabtaan shaqada laga rabo labo clarity qof waliba oo xog uga baahan wax cayiman way yaqaaniin halkeebay ka helayaan xogtaas iyo qofka haya xogtaba saddex waxaa fudud in sare loo qaado xirfadda shaqaalaha wax waliba ama mid cusub in la baro waayo madaxda waaxda waxa ay leeyihiin aqoon ay ku biirin karaan shaqaalaha kale ee ka shaqaynaya shirkadda khaasatan waaxda ayaga ay maamulaan afar sidoo kale kala sarreynta ka jirta shirkadda way caddahay oo qof waliba way u caddahay yaa madax u markana aan isla aragno qayb ka tirsan faa'iido darrada ku jirta adeegsiga qaab dhismeedka functional organizational structure waxaa ka mid kow jahwareer iyo inay ku adkaato shaqaalaha ka shaqaynaya tusaale waaxda iibka in ay aqoon waayaan sidee bay ula shaqaynayaan waaxyaha kale oo haddii aanay ka helin jihayn maamulkooda shaqaalaha hoose ma aqoon karaan sidee bay u wajahaan caqabadaha iyo waa maxay xiriirka kala dhexeeya waaxyaha kale labo sidoo kale waxaa faa'iido darrada ka mid in waaxyaha kala duwan ee shirkadda inay galaan tartan curyaamiya habsami u socoshada shaqada shirkadda ay leedahay si ay u gaarto hadafkeeda guud xog dheeraada oo ku saabsan organizational structure business objectives and goals fadlan ka dhegayso lifaaqyada hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay maadsanidiin waa inoo markale haddii rabbi idmo